Waxa uu ahaa shakhsiga ugu weyn ee maandooriyaha khatarta ah ee loo yaqaan cirbadda badrajiinta ah ku iibin jiray waaxda Jamhuuriyo oo ka tirsan degmada Kaaraan, isla mar ahaantaana gurigiisa ku sarqaamin jiray gabdho badan oo ubaxa dalka ah. Ila milicso muuqaalkan, adigaa qiiroon doonee daawade. qolkeyga dhexdiisa Hadda xabsiga ayaa loo taxaabay oo waa la xidhay, balse xogo kaa qarsoon iyo shakhsigan sida ba'an u xumeeyey gabdhaha Soomaaliyeed qaar ee uu barihiisa bulshada soo dhigayay iyo xogo kale ayaan idinla wadaagi doonaa daawadayaal. Fadlan muuqaalka laagaree oo la wadaag saaxiibadaada, ku soo biir baraheena bulshada ee Ducaysana Media. Ku mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow, meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan, ku soo dhowaada channelkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media oo baan idinkugu soo gudbinno warbixinada iyo xogaha markaasi taagan. Waxaa baraha bulshada muddooyinkan dambe lagu hadalhayaa shakhsi ku sugnaa xaafadda Jamhuuriya balse haatan loo taxaabay xabsiga, isla mar ahaantaana iibin jiray maandooriyaha nuuca loo yaqaano cirbadda badrajiinta, isla mar ahaantaana dadka sarqaamisa, kuna iibin jiray waaxda Jamhuuriyo oo ka tirsan degmada Kaaraan. Shakhsigan waxaa qabtay ciidamada booliiska degmada Kaaraan, iyadoona xabsiga haatan loo taxaabay. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya, iyadoona la soo taajin doono maxkamad iyo sidoo kale la marsiin doono ciqaabaha uu mudan yahay. Waxaa gurigiisa imaan jiray gabdho aad u fara badan, isla mar ahaantaana waxa uu ka iibin jiray cirbadda nuuca loo yaqaano badrajiinta. Haddaba gabadhan fiiri sida uu u galay daawade oo muuqaalkan ila milicso. Wax walba oo xun aan ka hor tagno daawadayaal, haddii aan nahay Soomaali weyn oo idil. Muuqaalka laagaree, ku mahadsanid daawade. Tan iyo kulanti dambe, nabadiino.